soo dhawaada saaxiibayaal mar kale filimku wuxuu ka hadlayaa gabar aad u caqli badan lagu magacaabo Leyn aabaheedna aad ugu faraxsan yahay sababtoo gabadhu waa mid si heer sare u caqli badan waxay doonaysaa inay dhigato iskuul si fiican loo yaqaano markay tagaan iskuulka ayay ogaadeen in lacagta iskuulka aad badan tahay markay la kulmeen maamulada ma awooda inay bixisaan lacagta ayay maamulada weydiisay iyada hadal ku bilowday Leyn laakiin maamulada aad bay u heshay wada hadalkii Leyn iyo sidii xisaabtu xalisay markaasi iskuul ku dartay iyada wax lacag laga rabin Leyn waxay saaxiib la noqotay gabar kale oo cusub oo aan sida Leyn u caqli badan Leyn markasta waxay caawin jirtay gabadhaas si ay u xaliso su'aalaha xisaabta imtixaanka ayaa bilaabma Leyn waxay heshay darajo buuxda saaxiibteedana waxay heshay darajo wanaagsan laakiin ka hooseysa tan Leyn inkastoo aan diyaar u ahayn imtixaanka haddana Leyn aad uga caawisay inay warqadda xaliso labadooda aad bay isku faraxsanaayeen kadib Leyn iyo saaxiibteedu waxay tagaan xaflad uu saaxiibkeedii qabanqaabiyay Leyn waxay halkaas ku ogaatay in deeq waxbarasho heshay taasi micnaheedu waa in laga qaadan lacag waxbarasho laakiin waxay ogaatay in aabaheed uu bixiyay qaar kamid ah lacagaha kale markii guriga ku laabatay waxay hubisay warqadda lacag bixinta waxay ogaatay in aabaheed uu bixiyay 2,100 baad qarashaad iskuul markay taas aragtay Leyn way ooyday waxayna tiri aabe maxaad ii geysay iskuulka ugu khalisan aabaheed wuxuu yiri ma jiro wax iigu muhiimsan mustaqbalkaaga ifaya kaliya diyaarada saar waxbarashadaada waxaa soo dhawaanaya maalinta dhalashada hooyadeed waxay bilaawday inay been garaacdo iyada xasuusinaysa hooyadeed sababta waxaa ka maqnaa jaceylka hooyadeed markaasay Leyn fikrad heshay maadaama ardayda kale san u caqli badan sideedoo kale oo si joogto ugu dhacaan imtixaanka maxaa markaan uga caawin kartaa imtixaanka markaas ay ardayda u sheegtay fiiriya markaan been garaacayo xasuusta dhaqdhaqaaqa farahayga haddii aan sidaan farta u taago waayay haddii aan sida on dhaqaaqo waa BCMD markaas ardaydii waxay barteen dhaqdhaqaaqa faraha Leyn markuu imtixaanka bilaabmay Leyn waxay faraha ugu sheegaysay ardayda kale jawaabaha sidaas darteed fasalku wuxuu bilaabay inuu helo natiijooyin fiican markii natiijada la shaaciyay fasalkoodii wuxuu noqday kan ugu sareeya Leyn waxay noqotay ardayda ugu horeysa arday la yiraahdo Banki ayaa kale kaalinta labaad labadoodii waxay ka qayb qaateen tartanka iskuulka la matalayo magaca tartanku ku xaateen Queenias Banki sidoo kale waa arday aad u caqli badan labadoodii way guuleysteen maamulada iyo dadka kale aad bay uga heleen maamulada waxay tiri waxaa jira arday tariir oo wax ku bartay deeq waxbarasho laakiin Leyn iyo Banki aad bay idinka helay idinku waxaad magac u soo hoyiseen iskuulkeena markaan waxay idin hayaa fursad midkiina ah laakiin runta ayaa in mid kale dooran doono si uu tago waxbarasho dalka Singapore isigoo ku baxaya deeq waxbarasho markaas ayaa la ogaaday in xaaladda qoyska Banki ay liidato Banki aad buu u dadaalay si uu qoyskiisa u caawin lahaa markaas wiil ayaa u yimid Banki wuxuuna weydiistay buugtiisa wuxuu yiri adigu waa fiican tahay buugaagan waxtar buu leeyahay Banki wuxuu yiri waa ku xuma anigu waa inaan akhriyaa wiilku wuxuu si qalad u yiri Leyn aad bay noo caawisay imtixaanka bay naga caawisaa wuxuu ku yiri si qalad ah laakiin hadalku ka dhacay Banki uu ku xumaaday arintaas markii imtixaanka bilaabmay wuxuu arkay Leyn oo runtii dadka caawinaysa si ay u xadaan imtixaanka markaas ayaa waraaqaha imtixaanka la bixiyay qaarkood waxay heleen C1 qaar kalena C2 waxayna su'aalaha kala duwan yihiin Leyn waxay heshay warqadda C1 waxay calaamad siisay dadka kaliya haysta C1 markaas kaliya dadka C1 ayaa Leyn ka caawin kartaa xatooyada imtixaanka kuwa kale way ku guuldareysan doonaan markaa Leyn bay bilaawtay inay dadka caawiso Banki wuxuu si dhow u fiirinayaa wuxuu si degdeg ugu tagay kormeeraha wuxuuna u sheegay kormeerihu wuxuu yiri waan fiiri doonaa fadlan fadhiiso markii imtixaanka dhamaaday dhamaantood way baxeen markaas maamulada ayaa Leyn ugu yeertay xafiiskeeda markii gashay waxay aragtay Banki hore u joogay taasi waxay ka dhigantay in Banki cabasho u gudbiyo maamulka maamulada waxay Leyn weydiisay marunba inaad dadka caawisay xatooyada imtixaanka Leyn way wareegtay aabaheedna waa loo yeeray waxaa loo sheegay in gabadhiisa dad kale ka caawisay inay xadaan imtixaanka aabaheed ayaa la weydiiyay ma iskuulkan ugu darna si tan loo sameeyo maamulada ayaa hadal adag hor dhigtay aabaheeda Leyn ma aysan awoodin inay dul qaadato markaas ay tiri maxaa sheegaysaa waxaad igu dhihi kartaa waxaad doonto laakiin maxaad u leedahay aabahay maamulada aad bay u xanaaqday Leyn ma aysan mudan inay saas ula hadasho markaas ay fursad ugu tagi lahayd Singapore kambiyahaanba ka tagtay wixii lacag cabasho ayaa dhacay maamuluhu wuxuu u sheegay Leyn in laga saari doono iskuulka hadii aqbasho laba shardi in ay sii dhigato iskuulka iyadoo wax qiimo lahayn mana loo diri doono Singapore markaas ay Leyn tiri hayaha ii dirin kadibna iskaga tagtay waxayna ku noqotay gurigooda markii guriga tagtay aabahe si adag buu u canaantay Leyn waxay wicitaan ka heshay saaxiibteed oo ku tiri fadlan hoteelkii ugu imo waxay tiri waxaan ka rabaa caaminaad aabaha saaxiibkii ahna wuu fadhiyaa halkan aabaha wiilkaas ayaa bilaabay inuu la hadlo Leyn wuxuu yiri waxaan rabaa in wiilkayga imtixaanka u gudbo waa inaan ka caawisaa inuu ka xado runtii wiilkaas iyo saaxiibada Leyn waxay u fadhiisin doonaan imtixaan caalami ah guusha imtixaanka waxay
leedahay faa'iidooyin badan. Leen ayaa loo wacay maxaa yeelay iyaga ma aysan awoodin inay ka gudbaan warqadda, waxayna doonayeen inay Leen ka caawiso. Iyaguna waxay u balaqaadeen 6,100 oo baad ah, laakiin Leen diyaar maysan u ahayn inay mar kale ku lug yeelato arrintan, sababtoo markii hore way ceebooday. Markaas iyo raaligelisa wayna ka tagtaa. Intii ka bixaysa hoteelka, Leen waxay eegtay saacadaha dalalka kala duwan. Saacad kasta wuxuu muujinaya waqtiga waddanka. Kadibna fikradda ayaa maskaxdeeda ku dhalatay. Imtixaanka caalamiga ee galayaan saaxiibteed iyo wiilkaas waa mid ka dhacaya isla waqtigaas adduunka oo dhan, laakiin waddan kasta wuxuu leeyahay waqti gaar ah. Marka waddanka ugu horreeya laga bilaabo imtixaanka, waxaa la heli karaa su'aalaha iyo jawaabaha ka hor intaysan bilaabin dalalka kale, maadaama ay su'aalaha isku mid yihiin. Waxay u isticmaali karaan si ay u xadaan. Markaas Leen waxay u sheegtay labadooda qorshahan. Waxay go'aansadeen in la raadiyo caawinaad banki. Markaas Leen waxay tiri, aniga ayaa u duulaya Australia, halkaas ayaan imtixaan ku geli doonaa. Waxaan xasuusan doonaa su'aalaha si aan idinku nagu soo diro jawaabaha si aad idinku u diyaargaroowaan imtixaanka. Markaas dhammaantood way ku farxeen maxaa yeelay qorshuhu wuxuu ahaa mid quman. Dhanka kale, bangi waxaa ka raacay wiilal, waxayna ku tuureen meel gaas ah. Dhinacoodii waxa ay bilaabeen qorshaha sida ay u qiyaami karaan imtixaanka caalamiga ah. Waxay la xiriireen arday kala doonaysa inay qaataan imtixaankaas. Waxay u sheegeen haddii aad rabtaan caawinaad waa inaad bixisaan lacagta. Lacagtu aad bay ugu qiimo yar tahay marka la barbardhigo imtixaanka. Dhammaan ardaydii way aqbaleen waxayna ku biireen kooxda. Wiilkii qaniga ahaa bis doonay in wiilkiisu guuleysto. Isagu wuxuu bilaabay inuu dadka kala hadlo. Dhageysta waxa kaliya oo ogol yahay inay inta la yimaadaan waa 4 shay: qalin tirtire, baasaboorka iyo warqadda su'aalaha. Su'aashana waxay tahay sidee bay ku qiyaami doonaan. Banki Leen waxay u duuli doonaan Australia, waxayna xasuusan doonaan su'aalaha halkaas, laakiin su'aalaha looma diri karo si toos ah dhammaan ardayda. Markaas waxay go'aansadeen in la isticmaalo barcode ku jira qalinka. Waxay daawici doonaan faraha jawaabaha sida barcode-ka. Jawaab kasta waxay noqon doontaa xariiq barcode ah. Xariiq buur ee midka xoogaa dhuuban bi midka celceliska si midka ugu dhuuban dhii. Xariiq kasta wuxuu matalayaa jawaab. Kadibna waxay suuriyaan barcode ku duubnaa qalinka. Sawirada qalinka ayaa loo diri doonaa dhammaan ardayda. Waxay ku dhaqaaqaan qorshihii Leen. Waxaa jira 3 fasax imtixaanka. Fasaxa koowaad markii ay dhammaan qaybta hore, Leen waxay jawaabaha ugu diraysaa saaxiibada iyadoo aadaysa mashquusa. Sidaas ayay sameeyeen Leen iyo banki labada fasax ee hore, laakiin fasax saddexaad banki aad bay ugu dheeraatay mashquusa. Kormeeraha ayaa si degdeg u furay albaabka, sababtoo wuxuu ka shaksanaa banki oo si joogto u baxayay. Taleefankii ayaa ka dhacay gacanta bankigoona jabay. Markaas ayaa la qabtay. Dhanka kale, Leen ma aysan awoodin inay ka baxdo mashquusa maxaa yeelay arday kale ayaa halkaas ku sugnaa. Markay ku noqoto hoteelka, Leen way wareertay. Waa maxay sababta banki uusan u joogin? Wax qaldan baa jira. qaybta saddexaad ee imtixaanka ayaa bilaabmay, laakiin Leen ma aysan garanayn si uu gudbiso jawaabaha qaybtaas. Markaas ayay xasuustay su'aalaha oo ay ku qortay dhinaca warqadda. Kadibna si ay dibadda uga baxdo, waxay sameeysaa inay matagto iyadoo qalinka afkeeda gelinaysa. Waxay sheegtay inaysan imtixaanka dhameysan karin sababtoo xanuun darteed. Leen waxay tiri ma qaadan karo imtixaanka maxaa yeelay caafimaadkayga ma fiicna. Kormeeraha imtixaanka u dhashay dalka Australia ayaa daba socday. Waxay joogeen Australia halkaas oo xeerarka imtixaanka aad ugu adag yihiin. Markaas ayuu ku yiri waa inaad imtixaanka dhameysataa oo ku laabataa kursigaaga. Leen waxay ku jawaabtay ma fiicna mana doonaa inaad ku laabto, laakiin kormeerihi ayaa si xoog ugu celin gudaha si ay imtixaanka u dhameysato. Markii gudaha sii gelaysay, Leen waxay mobilkeedii ku dhex riday boosto qof kale, laakiin dhinac wanaagsan wuxuu yahay in mar hore ay dirtay fariimaha jawaabaha su'aalaha. Markaasi kursigeedii ku noqotay. Waxay aragtay in banki uu fadhiiso. Macallimiintii waxay ogaadeen in Leen iyo banki ka tirsan iskuul kale, sidaas darteed labadoodii waxay u shaksan yihiin xatooyo imtixaan. Laakiin banki ayaa qirtay markaas in Leen aysan wax lug ku lahayn falkaas. Leen waxay dib ugu laabatay dalkeeda Thailand. Saaxiibteedii ayaa si farxad u soo dhaweysay, laakiin Leen aad bay u lulsan tahay. Waxay u carartay aabaheed, waxayna ku weydiin markay is arkeen sababtoo waxay aad ugu lulsantay xaaladda banki. Maalmo kadib, Leen waxay booqatay guriga banki. Markaasi aragtay mooto sport iyo alaabo qaali oo cusub. Markay aragtay waxay la yaabtay cidda keentay. Kadibna banki ayaa u muuqday wuxuuna yiri hawlwalin waa lii soo daayay, wax dhibaato ahna ma jiraan. Alaabtan waxaan ku soo iibsaday lacagtii aan ka helay halkaas. Wuxuu xasuustay in imtixaan caalami oo kale qaban doono. Wuxuu yiri kabar haddii aan marka lacag badan ka helno, laakiin Leen ayaa tiri may banki qaladaad badan ayaa hor u galnay. Markaas banki ayaa ku hanjabay haddii aadan ogolaan sirta ayaan fashili doonaa inaad adiga qaybkeed qiyaamadaas. Laakiin Leen way ka tagtay iyadoo aan ku raacsanayn. Ugu dambeyntii waxaa la arkaa Leen oo hor fadhiisa sarkaal. Waxayna u sheegaysaa sarkaalka inay gacan ku geysatay qiyaamadii imtixaanka caalamiga. Waxay sidoo kale faahfaahisay koortii sidii uga caawiso dad kale sidii u xadaan. Tani waxay muujinaysaa in Leen ay qirtay qaladkeedii oo ay dareentay dembigeeda. Filimku wuxuu ku dhamaanayaa muuqaalkaas. Haddii halkaan nala soo gaartay aad baa u mahadsantahay. Hadduu channel subscribe saaro, hadduu adiga subscribe ku yahay waxaan ka codsanayaa muuqaalka like noo saarto. Aad baa u mahadsantahay.
waxaan rajeynayaa in muuqaalkayga aad dhameysatay soo qor magaalada ku noosha waxa rabilaa ku soo gali doono qof isku magaalo tihiin haddii taasi ay dhacdo waxaan ka codsanayaa qofkaas inaad like u saarto adigana inaad naga hilmaamin subscribe-ta aad baad u maasantahay dadkii inta muuqaaladina shirkadda ku dhigan marka waxay idin ka codsanayaa muuqaal kasta like iyo share kana abadisiin